sheeko la yaab leh ku soo dhawow safar aan caadi ahayn aan ku arki doonno magaalooyin ay dhismayaashoodii cirka la siman yihiin. Waa maxay sababta magaalooyinkan u dhisan yihiin guryo noocaas ah? Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa magacyada iyo sheekooyinka cajiibka ah ee ka dambeeya 10 magaalo oo leh guryaha ugu dhaadheer dunidan. Waxaad la yaabi doontaa midka koowaad ee hamoogaan. Ma isweydiisay weligaa magaalada uu ku yaalo guriga ugu dheer adduunka? Ama sidee ayay magaalooyinka qaar ugu guulaystay inay cirka gaaraan iyagoo dhisayo skyscrapers kuwaas oo ka dhigaya in indhahaagu kuwa la yaabaan? Fiidiyogan waxaan ku soo koobi doonnaa liiska 10 magaalo ee leh guryaha ugu dhaadheer caalamka oo mid kasta leeyahay sheeko la yaab leh iyo naqshad cajiib ah. Waxaa laga yaabaa diyaar ma u tahay safarka cirka? lambarka 10aad Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia waxay hoy u tahay mardaka 118aad dhismaha labaad ee ugu dheer adduunka oo gaaraya 678 mitir. Waxay ku taalaa magaalada quruxda badan ee Kuala Lumpur, halkaas oo dhaqanka iyo casriyeynta isku yimaadaan. Ma ogtahay in dhismahani lagu qabto xaflado waaweyn oo soo jiidasho leh? Magaalada Kuala Lumpur sidoo kale waxaa loo yaqaanaa dhismayaal caan ah sida Petronas Towers oo waqti dheer ahaa astaan caalami ah. Magaalada 9aad Hong Kong waa magaalo si aan kala joogsi lahayn u shaqaynaysa habeen iyo maalin. Halkan waxaa ku yaala International Conference Center ICC oo leh dhirir dhan 484 mitir. Magaalada ayaa lagu tilmaamaa inay leedahay muuqaalka ugu quruxda badan ee habeenkii oo leh skyscraperska ka ifaya sida xidigyo daruuraha ka dhex socda. Hong Kong waa meel qof kasta oo dalxiis jecel uu ku riyoonayo. Magaalada 8aad Chicago, USA waa hooyada skyscraperska. Waa halka ay ka dhalatay fikradda dhismayaasha dhaadheer. Willis Tower, Sear Tower oo dhererkiisu yahay 442 mitir wuxuu astaan u yahay hal-abuurka iyo injineeriyadda casriga ah. Ma ogtahay in Chicago ay leedahay mid ka mid ah dhismayaasha ugu quruxda badan adduunka? Waa magaalada lagu arki karo injineerinimo soo jiidasho leh oo si fiican loogu soo bandhigay dhismaha casriga ah. Lambar 7 Seoul waxay hoy u tahay Lord Wall Tower oo gaaraysa 555 mitir. Dhismahana wuxuu isku daraa ganacsi, dalxiis iyo madadaalo, isagoo noqonayo meel daawadayaasha caalamka jecel yihiin. Magaalada Seoul waxaa lagu yaqaanaa dhaqanka K-pop iyo filimada caalamiga ah, laakiinse hadda waxay magac ku leedahay dhismooyinka dhaadheer ee soo jiidashada leh. Lambar 6 Mecca, Sacuudi Carabiya. Mecca waa magaalada ugu qaalisan ee muslimiinta caalamka. Halkan waxaa ku yaala dhismaha caanka ah ee Abraj Al-Bait Clock Tower oo dhirirkiisu yahay 601 mitir. Waxay leedahay saacad oo tan ugu weyn adduunka oo xitaa lagu arki karo meel fog aan magaalada ku dhaweyn. Ma ogtahay in dhismahan uu yahay xujayda malaayiinka ah ee yimaada Mecca sanad kasta. Magaalada 5aad waa Shanghai, China. Shanghai waa magaalo casri ah oo ku yaala Shiinaha oo leh mid ka mid ah guryaha ugu dhaadheer adduunka. Shanghai Tower oo dhirirkiisu yahay 632 mitir. Naqshadda dhismahan waxay u ekeynaysaa inuu dhuuban yahay meerada dhaqanka Shiinaha. waa astaan muujinaysa horumarka dhaqaalaha Shiinaha iyadoo sidoo kale ah meel muhiim u ah dalxiiska. Lambar 4 Riyadh, Sacuudi Carabiya. Riyadh waxay isku diyaarinaysaa inay hooy u noqoto dhismaha ugu dhaadheer adduunka ee Jeddah Tower oo markii la dhameeyo gaari doona dhirir dhan 1000 oo mitir. Dhismahan ayaa la filayaa inuu sii xoojiyo magaca bariga dhexe ee ku saabsan horumarka iyo muuqaalka caalamiga ah. Waa meel runtii qof kasta uu dhisme jecel uu ku farxi doono.
magaalada saddexaad New York City USA magaca cusub ee Manhattan Heights. New York waxay ku taalaa dhismooyinka ugu caansan ee dunida Central Park Tower oo ah dhismaha ugu dheer magaalada. Wuxuu gaarayaa dhirir dhan 472 mitir. magaalada New York waa halkii uu ka bilaabmay sheekada skyscraperska caalamka, waxaana mar walba la yaab leh habka uu u kordhayso. Lambar 2 magaalada Dubai magaalada dhismooyinka mucjisada leh. halkan waxaa ku yaala dhismaha ugu dhaadheer dunida Burj Khalifa oo leh dhirir dhan 828 mitir. waa astaan caalami ah oo soo jiidashada malaayiinka dalxiisayaalka ah sanad kasta. lagu yiraahdaa haddii aad rabto inaad aragto mustaqbalka, booqo Dubai. waatan magaalada koowaad magaalada dunida ugu quruxda badan lehna skyscraperska ugu dhaadheer Shenzhen, China. waxayna ku soo xiranaysaa liiska magaaladan tiknoolajiyadda sare leh ee hoygu ah Ping An Finance Center oo ah mid ka mid ah dhismayaasha ugu dhaadheer dunida. Shenzhen waa halkii riyooyinka tiknoolajiyadda ku rumoobi lahaayeen. waa magaalo ku faanta inay mustaqbalka ka hormartay magaalooyinka badan oo caalami ah. waa 10 magaalo ee ku faanaya guryaha ugu dhaadheer adduunka. waa caddayn uu gaadhay heerarka cusub aan caadiga ahayn. dhismayaashan ma ahan oo keliya naqshado qurux badan, laakiin waa astaan muujinaysa hal-abuurka tiknoolajiyadda iyo riyada aan xadidnayn ee aadanaha. haddaba waa su'aasha adiga kuu taal. waatan midkee ka mid tahay magaalooyinkan ayaad ugu jeceshahay inaad booqato ama ku noolaato? fadlan nagula wadaag si aan u ogaano fikirkaaga. ha iloobin inaad like saarto, subscribe-na ka dhigto channelka si aad u hesho xog cusub oo xiiso leh oo aan kugu soo gudbino fiidiyoyada xiga. mahadsanid inaad nala safartay ilaa markaan. nabadgelyo iyo horumar aan joogsi lahayn.